guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo muddooyinkanba ku sugnaa gobolka Sool magaalada Laascaanood ayaa maanta shiraaid ay ku qabteen hotel Casuur ee magaalada Laascaanood waxay kaga hadleen sida ay shaqadu uga socoto guud ahaanba gobolka Sool iyo sidoo kale waxay bulshada ku dhaqan gobolka Sool ku booriyeen inay qaataan kaarka codbixinta ee doorashada si ay ugu codeeyaan xilliga doorashada. komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu muddooyinkanba ku sugnaa gobolka Sool caasimadiisa Laascaanood oo ujeedadu ahayd diyaargarowga kaar qaybinta gobolka Sool dhamaantii hawluhu si fiican ay noogu socdaan oo ay noogu bilaabmeen waxaanu ku jirnaa muddadii tababarka shaqaalaha waxaa noo soo xirmay hadda qayb kamid ah ardaydii ka qayb gali lahayd kaar qaybinta iyo macallimiintoodii aan hore u tababarnay qaybtii labaadna waxay noo bilaabmi doontaa insha Allah bari haddii la ka dhigo 2 maalmood bay u socon doontaa guud ahaan waa 400 iyo dheeraad ardayda ama shaqaalaha ka qayb gali doona guud ahaan gobolkan oo goobihiisa ay dhan yihiin 177 goobood 177 ka goobood hore ay dadku isaga diiwaan galiyeen si fiican way u qaateen imikana waxaanu ku dardaaraynaa bulshada maadaama markii hore bay isdiiwaan galiyeen in imikana kaarkooda u qaataan si wanaagsan 12 bishan ku jirnay 8aad waxa bilaabmi doona kaar qaadashada gobolkan Sool dhamaantii daahfurku noqon doono bisha 10keeda oo maalin sabti hadii la yiraahdo 12kana jimcaha khamiisa jimcahana waxa weeye kala raridii iyo kala guridii alaabta sabtana waxa weeye oo 12 sidii komishanka kalsoon sheegtay qaadashadii kaarka u horeeya la qaadanayo muddadii la sheegayna socon doona sidaasaan u nimid hawl wanaagsan baa ka socota ilaamka diyaargarowgii way fiican tahay dadkana waxaan u sheegaynaa wax kale oo loo sheegay ma jire kaarkiina soo doonta oo qaata waa la idin keenay nabadana ilaaliya oo nabadgelyo suga waxa loo nabad baa u beysa Sool waxaanu aad ugu faraxsanahay inay nabad ballaaran jirto in dadkii soo wada noqdo meelaha ay joogaan badankoodii waa wax lagu farxo weeyii waxaan aad u rajaynaynaa in kaar qaadasho wanaagsan Sool ka dhici doonto ay halka ku soo afjarmi doonto dhamaystirka Soomaaliland iyo kaar qaadasho fiicani ka bacdina ay iman doonto doorashadii hal cod iyo hal qof. Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Gurey telefishinka caalamiga ee Somali Cable Laascaanood.